أنا أقول ما أنا قاضية هدي أتسميسي صدحنا قضب إن أي نرش هذا وحوي كبدلية تصال يوتيوب وحا كتير everything you need to search شيء كسؤال بعهن هنا الداري كنت وعنا ونكسن أن صاحب بيال أن كسر هذا برنامج كيني اللبعض أن برنامج كيني اللبعض وحن كأيق دونا ما أنت صدح شيء أو نرش هذا السامين كويا لنا يا أما نرش هذا وحكب بدلية هدي أدلت مادت برنامجيدنا أنت بدنا نحب بديهم برنامجية ديرجلنا أو كقيب قاعدنا يا كبعنتا جراتك يا النفط قفك بني آدمك إن شاء الله تعالى كنال كين نحن كسو جدودنا برنامج فائدة بدنا ولا بالشدة جارهان لليرده كواسو محوها هي وح بدن فكرهان يو مسكحهان بيننا عاون دونا انتينا برنامج بلعبين فضلا ان سي مقال كان ودد بدن وجارة لايك تصار نونس سبسكرايب نونسار هذا هراء سبسكرايب صارين صاحب هذا لو ذاك كسر لو هذا برنامج كنا صدق قضب قضب كلمبر وانك هدي عاد سميسو نلاش هذا السامين تكوي لنا أما نلاش هذا بدلية وحكمده أو جهرية أدو هرتا إسأقونسو إن أدو قبسن كرتو أديبو مركز أقونسته إن أدو قبسن كرتو أياد محوها أياد إسبدل سمين كريسة هدي عاد نلاش هذا كسرتي دتك شخصيات كوا هريريسن أديركا أبتيجا إيددا habaryarta saaxiibada dadka family-ga ee kugu hareeraysan hadii aad noloshaada ku xidho haday noqoto dhaqaale ahaan haday noqoto waxbarasho ahaan haday ahaato mustaqbalkaaga haday noqoto weliga iyo Allah horumar gaarimisid waayo waxa tahay qof mustaqbalkiisa iyo noloshiisa u daba fadhiya dad kale oo ka fog hadaba si aad noloshaada ugu sameeyso isbedel markaad is aqoonsato inaad hebel tahay inaad wax qabsan karaysid kow samayso ama awood aad ku bedeli karto naftaada samayso tusaale ahaan xirfad baad samaysanaysaa xirfad aad ku shaqaysatid oo noloshaada wax ka bedeli karta ayaad samaysanaysaa ayaad ku urgelaysaa ayaad wax barasho u gelaysaa qodobka labaad xirfadda intaad ku jirtid wax barasho gal oo samayso waxbarashada hagaaji luqadaada hagaaji wax qoraalka sida wax loo qoro iyo sida wax loo akhriyo baro haddaad luqadaha u baahantahay luqada Carabida baro luqada Ingiriisida baro taasa markaa noloshaada isbedel ku kiri markaa in yaro muddo yaro kooban oo aad wax baratay ayaa keeni karta inay mustaqbalkaaga wax weyn ka bedesho sidoo kale adigoo xirfad baranaya أما حرفة ساعة حرفة كشغتي كرتيد أما حرفة هدو تولم مستقبل كنولش هذا كبدي لك كرتيد واحد سميسها شغتك أديكوا واحد لجنايا لين عنا كشغتك وهدي عاد واحد برشة الجيلين كهورتك تيد وين الجيل كده بقى شغتك تاع واحد الله على واحد ينتقبوا أي نوع واحد العيكاس والجيل يسموه يعني واحد كله شغتك إلى هو بالمي لبعتهم مقاسو كلام أنت لبعتك أكو ما نولش هذا كم عارين ساعة وإحنا واد برنسا waayahay waxaad qodobka muxuu haayay saddexaad ee markaad is aqoonsataa sameynaysa waxa weeyaan ka fogow saaxiibada faraha badan leh saaxiibada faraha badan leh marka soo aad la kulantid oo meel la fariisatid oo aad isu timaadaan waxa laga yaabaa nolosha ka dhacday inaad iyaga ku dayatid inaad horumar sameyn weydo in muxuu haayay waqti badan oo ka luma in waxbarashadii aad sameyn lahayd ay ka mashquuliyaan inaad maqaayad fadhidid oo ay muxuu haayay waqtigu ka lumo qodobka muxuu haayay labaad ee aad noloshaada ku bedeli karto markaad intaas soo sameeysid markaad xirfad aad dooratid aad noloshaada wax ka bedeshid markaad shaqo tagtid markaad waqtigaaga nidaamisid qodobka labaad ee muhiimka ah ee noloshaada wax ka bedeli waxa weeyaan waqtigaaga maare waqtigaaga hadaad maareyn kari weydo noloshaada ma bedeli karaysid tusaale ahaan jadwal samayso jadwalkaas oo ku fadhiya xilliga aad cibaadeysanaysid xilliga muxuu haayay aad wax akhrisanaysid xilliga muxuu haayay aad shaqada yarayda koobniyada qabsanaysid naftaada ku meeranaysid aad doonanaysid xilliga aad muxuu haayay nafisaysid meelaha yar fariisanaysid xilliga aad wax akhriska sameynaysid xilliga aad seexanaysid xilliga aad baska raacaysid ee aad ku sii socotid meelaha aad u baahnayd jadwal baad samaysanaysaa marka jadwalka markaad fariisisid maxaad samaysanaysaa
dee jadwalkaas wuxuu noqonayaa kii aad toolkii aad isticmaalaysay weeyaan waqtigaagu markaa si aad noloshaada horumar uga gaadhid waa toolkii aad isticmaalaysay weeyaan waayahay qodobka saddexaad marka toolkii samaysatid ee aad shaqo tagtid ee aad xirfadna aad dooratid aad muxuu ahay mustaqbalkaaga aad ku maaraysid qodobka saddexaad waxaad samaysataa milestone waxa la yiraahdo halkeebaad ka socotaa halkeebaad u socotaa markaad ogaatid halka aad ka dhaqaaqaysid maanta taagan tahay ee aad ogaatid meesha aad hiigsanaysid geedigaagu geedi nabad qaba geedi wanaagsan geedi horumar geedi lagu farxo geedi hadhow toole aad guul ka gaadhid buu noqonayaa way haddaba si milestone-kaagaasi uu kugu dhammaystirmo maxaad samaynaysaa ama waqtigaaga aad ka gaadhid horumar fiican aad ka gaadhid koo waxaad ka tegaysaa wax allaale wixii waqtiga kaa luminayay oo dhan ilaan waqtiga waad iga saafgareeyey maareeyey tuulkaad isticmaalaysay waa waqtigu sidee social media faraha badan loo joojinaysaa Facebook aad iska daawanaysid YouTube aad iska daawanaysid filimaanta aad iska daawanaysid dadka chat-ka la sameynaysid soo jeedka faraha badan leedahay habeenkii sameynaysid waxyaabaha unnecessary ah oo dhan baad ka tegaysaa dhamaantood ee aan noloshaada muxuu ahaayay wax positive influence ku lahayn saameyn wanaagsan aan ku lahayn waxa laga yaabaa qof inuu social media isticmaalo maalintii 10 video ina daawatid oo waxba ku jirin riwaayada daawatid majaajilada daawatid Facebook una boostun saa u wadid aad wadid wax saameeyna taasi noloshaada yaani ku yeelanin iska wada dhamaantood iska wada xidh taalidigeeda laakiin hadaba waxaad isticmaalaysaa aalada loo yaqaano YouTube-ka ayaad isticmaalaysaa si xirfadaadii aad doonaysay inaad noloshaada ku bedeshay ee toolka haye aad noloshaada isticmaalaysay hadhow toole si aad u horumarisid tusaale YouTube-ka waxaa ku jira everything you need to search shay kasta oo u baahan tahay inaad baadhid oo waxaad baranayso ku taxalluqa YouTube-ka soo qaada lacag ku shubo kaliya waxaad isticmaashaa un xirfada iyo cilmiga iyo aqoonta aad baranaysid cilmigiisa si aad uga baran lahayd hadhow toole waxaad ogaanaysaa adigoo oo noloshaada isbedel sameeyay ka baxay ku tiirsanaanta dadka ka baxay waqti lumiskii faraha badan laha ka baxay warwarkii iyo walaaci waxaadan ogaanaysaa inaad tahay qof u socda meel kana socda meel noloshiisuna isbedelayso ana ku damaanad qaadaya hadii aad sameysay saddexdan qodob in ay noloshaada wax weyn ka bedelayaan